coldoon oo xabsiga ku deen maayo adna beenta dadi maysid runta waa lagugu diiday dabin baa lagu qolay in badan waxaad ka hadashaa runta in badan waxaad ka hadashaa dulmiga iyo dhibaatada jirto in laga dhiidhiyo laakiin adduunkan hadda aan joogno dadka ku nool may ogolo qofka beenta sheegaya ugu beenta badan waa qofka ugu runta badan agtooda dad badan oo waxaa jira ku helan doonayana inaad iska dhaashooto dunidan oo iska baashaasho meesha doontana aad marto dad badan oo waxaa doonaya dabin kuu qoolayo rabaana inay ku dilaan kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan soo dhawaada mar kale waxaan ka hadli doonaa xarigii xaqdarrada ahaa ee cabdimaalig sheekh muuse coldoon maalmahan waxaa socday in baraha bulshada aad looga hadalhayo xarigga xaqdarrada ah ee cabdimaalig sheekh muuse coldoon kadib markii maxkamaddu ay ku dhawaaqday cadaalad in cabdimaalig ilaa hadda weli uu u xiran yahay cadaalad darro wasiirkii hore warfaafinta cadaani waa Somaliland yaan ka hadlaynay hadal qiiro leh ayuu xaqiiqatan yuu sheegay waryaana lagu rogin waryaana lagu halaagin waryaana lagu baabi'inin abaarahan iyo musiibooyinka taagan waa dulmiga aynu sameynayno kamid ahaa qayb kamid ah hadalkii cadaani xaqiiqatan wax dhab ah oo jiro ayuu wasiirka ka hadlay wasiir hore oo Somaliland xog ogaal u ah arrimaha ka jiro meesha iyada ah aad buu ogyahay wuxuu sheegay in cabdimaalig xarigiisa uu yahay dulmi cad oo geed lagu soo gaban nin kastana waa ogyahay ninkii intii la qabtay la jeebeeyay laga soo qaaday gobolka Togdheer la keenay Murudijeex intaas la soo waday eedan wada ognahay in burcay ku taala maxkamad eedan wada ognahay in burcay ku yaalan xabsiyo lagu xiri karo in Hargeysa Mandheera la geeyo kadib liska haystay muddo dambiye uusan lahayn la soo oogay markii la keenay maxkamadana socon waayeen maxkamadina ay cadaaladii si waafaqsaneed ay raacday oo ay tiri ninkan wax dambi ah malaha laakiin waxaa la doonayaa in loo maleego dambiye uusan lahayn qortana loo geliyo dad badan oo wax garad ah baa ka hadlay culimadii baa ka hadashay siyaasiyiinta baa ka hadlay cadaani baa hadda mataqaana ay ka hadlayo wuxuu sheegay in Somaliland la wada leeyahay aysan ahayn midan markii la eego qaabka loola dhaqmayo cabdimaalig waayo Somaliland waa dal la wada leeyahay oo beeraha Somaliland ay wada leeyihiin waxa u dhaxeeyo waa maxkamadaha iyo mataqaanay ee dastuurka in la isku waxay inta laga soo gudbo liraa anigu ii xiran yahay qofka ii xirnaado taasi suurtagal ma noqonayso wasiirka wuxuu si raaciyay in dhammaan Soomaali meel kasto ay joogto dunida in ay mudaharaad silmi ay qaadaan kuna dalbanayaan in cabdimaalig la sii daayo habeenii maalin man u fadhina halkan inaan kaga hadalno dulmiga iyo dhibaatada lagu hayo cabdimaalig sheekh muuse coldoon waxaa na soo gaarayo kadib markii ay hadleen waalidiinta iskuulka abaarso wixii ka dambeeyay cabdimaalig in xabsiga cadaadis xoogan inuu kala kulmayo handadaad inuu kala kulmayo waxay sheegeen eheladiisa markii ugu dambeysay cabdimaalig maskaxiyan iyo jismiyan inuu caadi ahaa haddii dhibaato soo gaadhana ay mas-uul ay ka yihiin waalidiintii shalay diinta ka saaray isagoo muslim ah kitaab quraan haysta tukanayo yiri waa gaal waalidiintii shalay yiri waa beenaale waxa uu sheegay waxa kama jiro cabdimaalig waxaa wada jecel ummadda Soomaaliyeed waxaa nacab dad gooni ah oo qabiil iyo qabyaalad ay dishay baa mataqaanaya nacab cabdimaalig uu ka weyn yahay hankiisa wax la yiraahdo qabiil aad buu mataqaanaa uga weynaa dadka uu caawinayay oo muusan kala soo ceenin yaa tahay
taasi waxay ku tusinaysaa marka dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan inay jecel gooni ah inay u qabaan Cabdimaalik ayna doonayaan in dunidan uu iska dhaasho inuu dunidan si xornimo ah ku joogo in dunidan uu ilaahaygiisa ku caabudo ilaa inta mataqaan ilaahay uu kala kulmayo dadna waxay doonayaan inay dunidan dhaafiyaan iyaga oo ka xun wanaagga uu sameynayo haddaba maxaa kaaga baxay marka hadalka wasiirka ee ahaa waa in mudaharaad silmi ah aan qaadno oo Soomaali meelay joogtaba aan u doodno xaqi uu lahaa Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo ahaa inuu xorriyadiisa in uu helo maalinba waxaa la soo ogaa dambi aan waxba ka jirin oo la doonayo in qoorta loo geliyo waa socon waaya mid kale la doonaa waa la soo waxaya ma soconayaan dadka Soomaali meel kastoo joogaan waxay garab u yihiin Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon maamadii shalay la garab istaagay muxuu ahaa dadka Soomaali meel kastoo ay joogaan ay garab istaageen ama siraad xaqiiqatan haddii Cabdimaalik uu joogi lahaa marka iyada in aysan tuugsateen hadduu arki lahaa waayo waxay ka mid ahayd kaalmee kuwan dadkii mataqaan loogu talagalay iyo mataqaana ka mid ahayd in aan bulshada la soo gaarsiinin ee mataqaan inay u gacan horsata iyada laakiin iyada wax loo weydiiyo la yiraahdo war hooyo dhiban baa jirtay wax u soo qabta taasi waxayna tusinaysaa marka cadaaladii uu Cabdimaalik uu hayay in loogu bedelay bedelkeeda cadaalad darro in loogu bedelay dulmi in loogu bedelay hagardaamo iyo wixii la mid dadka reer Somaliland waa dad diig leh waa dad nacab dulmiga maxay u dhaheen goonan u istaagno Soomaaliland ka go'nay dulmi bay diidanayeen lagu hayay xilligii dowladda kacaanka dulmi gooni ehbeed yaa lagu hayay dadkaas saasoo ay tahay way diideen waxay dhaheen maya dooni meeno haddii dulmigi isaga ahaa Muuse shalay uu diidanaa oo uu lahaa mataqaanay dulmi waan diidanahay oo soo askari oo wax soo garaada ku taxnaa oo duurka u galay haddii maanta Cabdimaalik mataqaanay meesha uu joogay oo hooyadii iyo aabihii ku noolaayeen oo dhulkiisa ah qaarkoodna ku xabaleen awgeedii in lagu dulminayo maanta haddii bari uu jabha sameeyo duurka uu galo maxaa la dhihi marka waayo dulmiga shalay laga digayay yaa maanta asaga lagu hayaa ma rabna amni darro iyo wixii la mid iyo mataqaanay khalkhal amniga la gelinayo laakiin cadaalad baa loo baahan yahay waxaa loo la rabaa dastuurkaas in la wada siman yahay waxaa la doonayaa maxkamadaha in cadaaladda ay dadka u wada siman yihiin laakiin in dad gooni la fuquuqo dadna la soo dhaweysto suurtagal maaha wax dhici karana maaha Cabdimaalik wuxuu u baahan yahay cadaalad Cabdimaalik cadaalad u baahan yahay meel kasta oo aan joognan waan garab taagana Cabdimaalik dadka Soomaalida dhammaan garab ay u yihiin waad mahadsantihiin kiishina haray